السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا qiimaha sharafta leh kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta aan ku soo qaadan doono tobanka dal ee ku nolosha qaalisan ee dunida. Shabakadda weelka Georgia ayaa daabacday liiska tobanka waddan ee ugu nolosha qaalisan dunida iyadoo lagu saleeyay hoyga iyo qarashka nololeedka qofka ku nool caasimadda waddan kasta. Kaalinta koowaad waxaa galay Bermuda. Bermuda waa meesha ugu qaalisan ee lagu noolaado adduunka oo dhan. Qofku waxa uu bishii ku noolaan karaa $5,000. Bermuda waa dhulka Ingiriiska ku yaal waqooyiga badiweynta Atlantika ay ku nool yihiin qiyaastii 65,000 oo qof oo dhul baaxadiisu tahay 350 kiilomitir oo laba jibaaran ay ku nool yihiin. Caasimadda waa magaalada Hamilton, dadkeedu hadda waa in ka badan 1,000 qof. Kaalinta labaad, Jasiiradda Cayman. Jasiiradda Cayman waa meesha labaad ee ugu qaalisan adduunka in lagu noolaado, sidoo kale waa dhulka ugu dadka badan ee Ingiriiska ee adduunka marka laga reebo Bermuda. Waxay ku taal cirifka galbeed ee badda Karibiyaanka waxaana hadda ku nool dad gaadhay 63,000 oo qof. Qofku waxa uu bishii ku noolaan karaa $3,380. Kaalinta saddexaad, waddanka Denmark. Denmark waa dalka ku yaala waqooyiga Yurub, waana dalka saddexaad ee ugu qaalisan adduunka waxaana ku nool ilaa 6 milyan. Caasimadiisu waa Copenhagen oo ay ku nool yihiin 1,200,000 oo qof. waxaad ku noolaan kartaa $3,312 bishii. Kaalinta afraad waxaa soo galay waddanka Switzerland. Switzerland waa dalka afraad ee ugu nolosha qaalisan leh adduunka waxaana ku nool qiyaastii 9 milyan oo qof oo ku nool dhul dhan 40,285 kiilomitir oo laba jibaaran. Switzerland ayaa ku jirta kaalinta 15aad marka loo eego tirada dadka adduunka iyo 135aad marka loo eego guud ahaan dadka. waxaa bishii ku noolaan kartaa $3,162. Kaalinta shanaad waxaa soo galay Iceland. Iceland ayaa ku jirta kaalinta shanaad ee liiska waddamada ugu nolosha qaalisan ee adduunka waxayna ku taal waqooyiga badiweynta Atlantika. dadkeedu waxa uu dhan yahay 287,000 kiilomitir oo laba jibaaran. waxa uu qofkii ku noolaan karaa $2,802 bishii. Kaalinta lixaad, Luxembourg. mid ka mid ah dawladaha ugu yar ee madaxa bannaan oo waddan aan bad lahayn oo ku yaal galbeedka Yurub waxaana lagu qiyaasaa dadka ku nool 62,000 oo bishii waxaa kugu filan $2,750. Kaalinta toddobaad, Bahamas. waa dalka toddobaad ee ugu qaalisan adduunka in lagu noolaado. dalka Bahamas waxaa ku kooban yahay in ka badan 700 oo jasiiradood iyadoo dad lagu qiyaasay 389,000 oo qof ay ku nool yihiin ilaa 14 kiilomitir oo laba jibaaran. qarashkan $2,704 ayaad ku noolaan kartaa bishii. Kaalinta sideedaad waxaa soo galay Norway. dalka Norway waxa uu ku yaala waqooyiga Yurub waana waddan Scandinavian ah ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan oo qof. Norway waxay xuduud la leedahay Sweden, Ruushka iyo Finland. dadkeedu waa 385,000 kiilomitir oo isku wareega waana dalka 170aad ee ugu dadka badan. qarash nololeedkeedu waa $2,659 bishii. Kaalinta sagaalaad waxaa soo galay Japan. dalka sagaalaad ee adduunka ugu nolosha qaalisan waa Japan oo ah jasiirado gaadhaya 6,582 jasiiradood waxayna ku yaalaan koonfurta bari ee Aasiya waxaana ku nool dad dhan 127 milyan oo qof. dhaqaale lagu qiyaasay $2,612 ayaad bishii ku noolaan kartaa. Kaalinta toddobaad waxaa cidhiidhsaday dalka Barbados. Barbados waa waddan tobnaad ee ugu nolosha qaalisan leh adduunka waxaana ku yaala Antilles-ka yaryar ee galbeedka Hindiya oo leh badka 340 kiilomitir oo laba jibaaran iyo dad gaadhaya 286,000. wuxuu qofkii ku noolaan karaa bishii $2,060. intan aynu ka eegi doonaa muuqaalkeena maanta. hadduu muuqaalkeena ku xiiso geliyay hanaga ilaawin inaad muuqaalka like noo saarto isla marhaantana aad channelkana subscribe noo saarto. inta muuqaalka mid lamid ah ku wada kulmi doono. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.